wixii dawladdu ay helaysay mar hore iyo mar dambaba waa la diyaar oo haddaanay xukuumadda maanta joogtay la jecel idinka hayn idinkuma soo noqoneen oo Hargeysa iska joogi lahayd socodkaygana wuxuu ka dhashay horta wixii la soo arko kadibna markaa madaxweynuhu eelaanka sameeyo si guud waan uga dhareegsanahay abaarta jirta wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Awdal wasiirka ciyaaraha wasiirka tamarta iyo macdanta wasiir ku-xigeenka dib u dejinta xildhibaano isku duwayaal iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ayaa waxay saaka ilaa maanta safar ku soo mareen deegaanada Baki Xamarta Oogeed Xoorey Araweyne Gebshedheer Garbadadar Tuurka Gargaara Bari Riiga Kalule iyo Lugaya deegaanadaasi oo kamid ah deegaanada ay sida baan u saameysay abaartu ay mas'uuliyiinta kala duwan socdaalkoodani wuxuu daarnaa xog ogaal u noqoshada sidii wax looga qaban lahaa abaartaasi iyaga oo maantana gaarsiiyay gargaarkii koobaad ee loogu gurmanayo dadkaasi ay abaartu saameysay wafdi ballaaran baa halkan maraya iyadoo awalba dawladdu ay ogay duruufta dalkani iyo gobolkani ku sumay meelaha abaaruhu ay ka dhaceen haddana in si dhaba loo soo taabto xaaladda uu imika marayo gobolku degmo loo maro tuulo loo maro dabadeetana wixii halkaa ka soo baxa qorshe loo sameeyo wax lagu qaybsado wixii dawladdu ay helaysay mar hore iyo mar dambaba waa la diyaar horena wixii ay awoodayso way soo gaarsay haddii hay'adaha tahay iyo haddii dawladda lafteeda ay tahayba imakana wixii ugu horeeyay oo 3,200 oo qoys ah oo fayskii hore aba ayaa waftidan halkan fadhida u raacay inay xogta soo taabtaan abaarta jirta waynu ka wada dhareegsanahay baaquna soo gaarayay mar walbana de waanu maqlaynay laakiin sanaduna de xagga aanu ka dadaalayna igama war laayno xog laayno ma haynin laakiin se waxbaan isugu geegeynay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkan uu la wadaagaynay in iclaan guud oo wadanku ka midaysan yahay laga soo saaro oo de sida dadka wax lagu qabxin loo helo baynu ka shaqeynay socodkaygana wuxuu ka dhashay horta wixii la soo arko kadibna markaa madaxweynuhu eelaanka sameeyo waxay raashinadan iyo waxaan iimanaya de maaha wax ummadda dhan wada gaaraya wata gacanta Ilaahay baa lagu dharkaa murtidu waa inta la sheegay una hadal kale haray ma jiro waxaan u soconay baahida saxda ah ee gobolku qabo aad aragtaan bay ahayd si guud waan uga dhareegsanahay abaarta jirta cid wax ay ka qaban kartana ma ahayna Ilaahay baa wax ka qaban kara Ilaahay baan baryaynaa inuu Ilaahay naga jabiyo inuu Ilaahay roob ina siiyo waad waranteen wixii baahiye jirayna waan qaadnay wixii caawimaaba ama dhiig joojinayna way nii soo socdaan hadduu la yidhaaho oo sida loo kala daran yahaan wax loogu turtuurayay idinkana way nii soo socdaan hadduu la yidhaaho waad sugaysaan horta saan idinku dhiminay waa qayradhaankiina idinka soo baxay ayaan idinku soo gurmanay inaan wixii la hayayna aanu idiin soo qaadno aan xaaladana u kuurgalno oo aanu eegno sida ay tahay biyo la'aanta caafimaadka abaartu dhinacay saamayso dhan si aanu baaqii loo jeediyo marka baaq madaxweyne jeedinayo la iskama jeediyo habraac bay qaadataa in dhammaan la soo maro oo dhulka asasba la sameeyo stages bay martaa kadibna ugu dambeynta ayaa xaaladdu hadday faraha ka baxaysa ama ay aad u xumaato ayaa qaladhaan la sameeya markaas gudbad la soo gaarsiiyaa tani waa taanu idinku dhibidnay maanta inaanu xaaladiina ugu guurgalno oo haddaanay xukuumadda maanta joogtay la jecel idinka hayn idinkuma soo noqoneen oo Hargeysa iska joogi lahayd horta waa saasaan idinku soo gurbanay horta dee abaarta iyo roobkana xukuumaduhu ma sii daayaan haddaanu roobka awood aan u leenahay waanu idiin furi lahayn dee gebigiisaba sidaad maaragtay marka waa wax xagga Ilaahayda ku xidhan Ilaahay baynu baryaynaa inuu Ilaahay abaarta adag inaga dulqaado dadka ariiraha ee adduunyada walwala ee gargaaraha agagaarkeeda ku nool baan ka mid ahay anu abaar maaha waxaan haysaayo waa abaar shan jira waa abaartii abaaraha cunaysay wax kolba waxbaa xoolo waxbay cunaan kolkay qoriyaha haddii la yiraahdo dhulka ku dhaca waxaan hayno jabsadaan waayaan waa abaartii xoolaha cunaysay abaartu waa sidaa oo shan jir weeyaan كل دوري يستفكر جل عمره ما تنسوا مرسل
عمري نما سومري وحين نو سومري الدنيا سيدا جوجته ون دغتا oo sidii loo dul joogo uu dadkii uu la joogay wuxuu u moodayo u degta waa cimrideedii koowaad geel ka dareeray oo aroorisay oo ceelkii ageysay ka fuli wanaab ka fuli la waayna waa cimrideedii koowaad ciid soo galay oo ilaahay wuxuu abuuray oo nafaqo waxaad magaalo geysatay iska reebay wax dhika yaacad weydina way cimrideedii koowaad saddexda cimridood waa saddex maanta ii koowaad cimriga 8 wax dheeriyay abaaruhu dhulkani waxa weeyaan maxuu ahaa way saameeyeen haday ari tahay haday geel tahay haday beera tahay intaba way saameeyeen arigii wadankan joogay maanta neef lagu nagu qalay ma jirto neef hadii la helo waa neef raashin cunaho geed ku xidhan neef islaantii soo xidhay oo geed ku xidhan oo cunnada caruurta lala siiyo ayaa maanta la arki karaa laakiin lama arki karo xoolo maanta hadii loo baahdo socda oo ariga la soo yar qabsado uun maanta lama arki karo waxaas waa maxay ahaydeen waa abaarihii wadanka ka dhacay laakiin abaar baan baa jirto indhaha way arkayaan abaarta wadanka ya abaar baan baa jirta ya sakala wala iska fiican yahay sida kale laakiin abaar baan baa jirta